fashilka shirkaasna lama wada lahayn waxaa wada lahaa madaxda dawladda federaalka oo ka indha oo maaragtay diidmo la tagtay meeshii ajanda lamaysa tagin waxay shirka Garowe la tageen diidmo qayaxan oo wax kasto ajandaha la damcay laga wada hadlo ay diidaan oo yiraahdaan maaragtay waxaas ma ogolin doorasho laga hadlo ma ogolin shidaal in laga hadlo ma ogolin xagga ma ogolin galmudug arinteeda in laga hadlo ma ogolin meel kastaaba diidmay la tageen diidmadii iyo canaadkii iyo isla weynidii waxay keentay in shirkii uu socon waayo laguna kala soo tago ilaa iyo haddana madaxdii dalka aan laga hayn hal kelimo oo ay shirkaas ka yiraahdeen hal isbuuc ayay dalka shaqo ugu maqnaayeen waxay ku maqnaayeen xitaa ayagoo kala dhuumanaya ayay magaalada Muqdisho soo galeen oo aan la garanayn meel waxay soo xaqiijiyeen iyo waxay maaragtay iyo ay soo sameeyeen intaba marka runtii shirkaasi uu soo fashilmay sababtiisana iyo intiisa badanna waxa lahaa madaxdii halkaan ka tagto aan ajandana wadan markii hore lana moodayna dad lagu soo qasbay inay shirka tagaan oo kale oo la sheegay safiirro dibadda inay markii horeba ayaga yiraahdeen meesha taga haddii ay fashilantay waxa la isweydiin karaa haddii dadaalkii Siciid Dani madaxweynaha Puntland uu dhigay madaxdoo dhan ay wada tagtay ay fashilantay xagee dalku aadi kara maxaa rajaha oo kale oo imaan kara aniga waxaan isleeyahay shayga kaliya oo imaan kara waxay tahay in doorasho degdeg ah ay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka dhacdo madaxweynihii inuusan dalkan gaarsiin karin February 8 2021 sidaas awgeed in dalka doorasho degdeg ah sanadka 2020ka la isku diyaariyo oo ay ka dhacdo sababtoo ay tahay xaaladdan mugdiga ah iyo kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaantan iyo kibirkan iyo madaxadaygan dal laguma hogaamin karo dalkuna kuma sii socon karo baaqaygu wuxuu yahay marka iyo aragtida aan soo jeedinayo in xoogagga siyaasadeed dalku oo stakeholderska ka mid ah dawlad goboleedyada iyo baarlamaanka labadiisa gole in ay arinta Garowe shirkii fashilmay aysan wax yar ka soo qaadin oo yahay wax weyn oo siyaasadda Soomaaliya يعني سامين دونا وحل ولد اللي هينا isagoo dhanna waxay tahay in xukunka lagu korarsado oo waqtiga lagu korarsado la yiraahdo meelihii doorashooyinka ka dhacayso dhan way diideen dawlad goboleedyadii arinta xitaa amni darrada dalka ka jirta xitaa qayb ka mid ah waxa weeye inaan dalka doorasho ka dhicin amni darrada waxa amniga loo sugayn oo shabaab loola dirireen waxa weeye hadhowtiin lagu marmarsiyado sharciga doorashooyinkana waa lagu soo qortayba arintaas in amni darro jirta awgeed aan doorashadu ay dib ugu dhici karto ayaa la soo qortay marka in dawlad goboleedyada aan la heshin in dalka amnigiisa aan laga shaqayn intuba waa waxyaalo lagu raadsanayo waqti kororsi sidaas awgeed aniga baaqaygu wuxuu yahay in waqtigii doorashada lagu talagalay ka hor ay dalkan doorasho ka dhacdo waayo hoggaanka hadda dalka joogahay uu ku fashilmay inuu dalka sii wado